oo naagtaada la xaji oo maxram markaa u noqo. London iyo Paris hoteeladooday jiifaan dumarkeena waxay ka soo dirayaan taleefooyin waxay tilmaamayaan inay yihiin kuwa ganacsato ah meel walba ayay socdaan diyaaradaha ayay keligood raacaan. maca daalika xaaladda noocaasa waa dhibaato. gabdhaha muslimaadka ilaahayna ka cabsada war khayrka iyo wanaagga ku dadaala. gabdhihii saxaabiyaadkaasaas ma ahaan jirin khayrka iyo wanaagay ku dadaali jireen. war xoolahan aad xaaraamtii waxyaabaha kale ku keenaysaan joojiya. war xoolaha yariisa ayaa ka fiican wax badan oo xaaraam ah. baqiyatullaahi khayr wax yar oo ilaahay baaqi kaaga dhiga ayaa kuu khayr badan. war iimaan ku qab zawjkaaga wax allaala wixii rabbi u soo qadaro. gabdhihii saxaabiyaadkii hore sidaa ayay ahaayeen. baahi inaan ku jirna ayaa nooga roon intaan wax xaaraana cuni lahayn ayay dhihi jireen. maanta shilin kasta meel kastoo laga keeni karo waa laga keenay walowse rabbi yuusan xaaraam yuusan ka noqonin ilaah subxaanahu wa tacaala raali haddii markaa la doonee. maca daalika ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala mar walbana amraa dumarka iyo raggu inay noqdaan dad khayrka iyo wanaagga ku dadaala. arrimooyinka kale ee kalifa inay xumaanta iyo zinadu ay timaado waxaa ka mid a heesooyinka, aflaanta la daawado, telefisiyoonaha, waxyaabaha kale musalsalaadka, tamthiiliyaadka waxa ay ka mid yihiin arrimooyinka keena ayaguna inay xumaantu timaado. war gabdhaha muslimaadka indhihiina ilaaliya. war indhaha waa layska su'aalayaa maalinta qiyaamo. saan soo tilmaanay indhihiina laaba. aflaan ayaa maanta la daawadaa. niman qaaqaawan ayay fiirsanayaan. raggii waxay daawanayaan gabdha qaawan oo timahoodu faydan yahay oo horaadkooda iyo dambaadkooda intaasoo dhan markaa la wada arkaayo. arrimooyinka waxay ka mid tahay arrimooyinka alla xaaraantinimeeyey. rabbigiina ka cabsada oo khayrka iyo wanaagga ku dadaala. fanaaniinta ayaguna waxay ka mid yihiin arrimooyinka xumaanta iyo zinada markaa badiya. way baxaan oo waddan kale ayay tegayaan. hoteelooyin ayay jiifaan ayagoo rag iyo dumar isla socda oo ajaanibyo kale ah markaa ah. masraxa ayaa la soo istaagayaa. aad iyo aad ayay arrintaa u foolxun tahay oo rabbigiina ka cabsada. waa arrin aan la ogolayn. waa arrin ilaah diiday subxaanahu wa tacaala. telefoonka ku hadlaysa iyo xasaabidiisa oo ragga ajaanibtii dumarku ay kula hadlaan waxay ka mid tahay arrimooyinka xaaraamtaee mamnuucda ah. li'annahu shay walba oo wanaagsan ayaa loogu talagalay qofku inuu ku hadlo. haddii gabadha muslimadda ay dirsato telefoonka maca daalika ujeeddadeedu ay tahay arrimooyin dan muhiim ah wax dhibaataa kuma sugna balse waa in layska ilaaliyo arrimooyinka xaaraamta ah. rasuulku wuxuu dhahay man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri qof walboo ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan waa inuu khayr ku hadlaa. falyaqul khayr aw liyasmud waa inuu khayr ku hadlaa ama uu aamusaa. telefoon ayaa la qabsanaa. waa nin iyo naag kale ajnebi ah. waxaa lagu haasaabaa oo lagu sheekaysanaa muddo dheer oo aad iyo aad u dheer. waxa lagu tilmaamay xaaladda noocaasa ama lagu sheegay alla ka cabsi ma aha. in alla laysxasuusiyaa ma aha. arrimooyinka zinadaa laga sheekaysanaa. walaa siyamaa ulama sii jirto hadday gabadhu tahay naag mtaqaanaa zawjad ah oo nin markaa leh. xaaladda noocaas waxay ka mid tahay arrimooyin aad iyo aad u dhib badan. wiilasha iyo gabdhaha ayagu markaa raba inay guurka sameeyaan kuna daliilsanaya jacaylka iyo cishqigii waxyaabaha la midka ah. waxaa laga rabaa habka nadiifka ah ee rabbi amray rasuulkuna amray inay wax u wadaan. haddaysan sidaa samayn ayaguna meesha waxay ka imaanaysaa inay zine iyo xumaan timaado. waxaa la leeyahay anigu guur ayaan iska doonaynaa. bilooyin iyo sanooyin ayaa laysla socdaa. meel kastaa laysla aadaa. safar ayaa laysla gelaa. shineemo ayaa laysla aadaa. maqaayadaa lagu wada jiraa. raashinka afka laysu gelinaa. xubbii cishqiyaa la joogaa. weli laysma guursanin. war dhallinyarada muslimiintow ka baxa oo ha samaynina arrimooyinka ay gaaladu sameeyaan. war nebigiina ku dayda. war saxaabiyaadku say isu guursan jireen isu guursada. war khayrka iyo wanaagga ku dadaala. ilaa waxaad arkaysaa dumar fara badan oo la mehriyey ayagoo uur leh. dumar fara badan oo la gurigeeyey ayagoo uur leh. waxaa ka dhex dhacaya mujtamaca dhexdiisa waa arrin cajiib badan. gabar caaba la gelbiyo habeen dambe dhashaa la arkay. war xaaladda noocaasa waa xaalad dhib badan. war shaydaanku waa cadow ma raba wanaagiina nadaafadiina khayrkiina owlaadiinu inay nadiif noqdaan. intaasoo dhan ayuusan markaa ogolayn. intaasoo dhan ayuu markaa diida. haddaba dadku waa inay ogaadaan zinadu inay mamnuuc tahay. mujtamacna waa inuu noqdaa mujtamac nadiif ah. ilaahay ayaan ka baryaynaa inuu xaqana waafajiya nagana ilaaliya zinada iyo xumaanteeda. inta ka horaysana walaalayaal aan dadaalna. wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.